mise meelo badan oo dunida ah waxaa halis sii kordhaysa ku haya isticmaalka daroogada, gaar ahaan daawooyin ay ku jiraan maadooyin daroogo ah. daawooyinkaasi waxaa ka mida kuwa xanuun baabi'iyayaasha oo ay dhakhaatiirtu bukaanka u qoraan si ay uga nafisaan xanuunka ba'an ee ay dareemayaan. dad badan oo ka mid ah kuwa daawo ahaanta loogu qoro iyo qaar badan oo aan daawo ahaan u qaadan oo si xun u isticmaala intuba waxay si dhib yar u qabatimi karaan daawooyinkaasi daroogada ka samaysan. xirfadlayaasha caafimaadka iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay jirto bulsho soo tiro badanaysa oo qabatimay daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha. bukaanka la qabsada waa kuwa aan joojin ama iska tanbadiyey ama sii isticmaala muddo ka badan wakhtigii uu dhakhtarku ugu talagalay. laakiin qaybta ugu badan ee bulshada qabatimaysa daawooyinkani waa kuwo aan bukaan ahayn balse ay u geysa hiwaayad, ama kuwo wakhtiga isku dhaafiya, iyo sidoo kale kuwo qaldamay oo aaminsan inay ka caawinayso inay shaqadooda si howlkar leh uga soo baxaan. qayb badan oo ka mid ah dadka qabatimay waa dhallinyaro badan oo aan fahamsanayn halista daawooyinkan, balse aqoon la'aani u geysay ama saaxiibadooda kaga dayday. daawooyinkan halista ah ee xanuun baabi'iyayaasha waxaa ka mid ah bethadine, moorfiinta, iyo kan xilligan ay dhibaatada ugu weyn ka imanayso oo lagu magacaabo tramadol, kaasi oo leh kiniini iyo cirbad labadaba. dhammaan daawooyinkani waa kuwo ay ku jiraan amaba ka samaysan inta badan maandooriyayaal loogu talagalay inay dadka xanuunka ka baabi'iyaan ama ay ilowsiiyaan. shuruudaha ay dhakhaatiirta caadiga ah ku qoraanna waa kuwo adag. hase yeeshee dadka la qabsada xanuun baabi'iyayaashani ma aha kuwo loo qoray oo keliya. xaqiiq ahaan waxaa badan kuwo aan loo qorin balse iskoodu isticmaala. waxyaabaha inay iskoodu isticmaalaan suurtageliyana waxaa ka mid ah inay si fudud ku heli karaan iyagoo inta ay doonaan ka iibsan kara farmasiyaasha ku yaalla magaalooyinka Soomaalida iyo dukaamada kale ee lagu iibiyo daawooyinka. dhibanayaasha la qabsaday daroogada ku jirta daawooyinkan waxaa ka mid ah dhalinyaro dhigata iskuullada iyo jaamacadaha. waxaa ku jira dumar. waxaa sidoo kale ka mid ah dad da'dhexaad ah oo u badan rag. xataa waxaa ka mid ah dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad, kuwaasi oo maadaama ay heli karaan u qaata inay shaqadooda u sahlanaato ilaa ay ka gaadhaan heer qabatin ah iyo meel ay adag tahay inay ka soo laabtaan. dhallinyarada qaarkood waxay ku bartaan oo marka hore u sahla cabitaanka shiishada. dadka sidaasi ku bartay waxaa ku jirta gabadh 19 jir ah oo xilligan la dhibaataysan qabatinka daawooyinkan. hooyadeed oo magaceeda qarisay ayaa galka baarista uga warantay duruufaha nololeed ee gabadheeda. muddo 4 sanaana gabar ayaa muqaadaraadkan maandooriyaha oo kaniiniga oo tramadolka la leeyahay igala ildaran. okay, waxaad wax yar ii sheegtaa marka hore say u qabatintay daroogada. horta waxaan waa wax hadar ah oo haddana shaydaan wado. iskool ay ii dhiganaysay gabadhay ka baratay. gabdhahiibaa waxay yidhaahdeen xilliga break timeka guriga aadaynaa xaafad halkaana shiishad lagu cabaa. gartay. bahasha shiishad bay ka bilaabatay waxayna ku dhammaatay kiniinigaas tramadolka laleeyahay ama cirbadda oo maanta 48 saac hadday moodaato aysan caadi ahayn. waa gartay. marka shiishadii maxaa ugu xigay? shiishadii kaniiniga ugu xigay. anigu kaniiniga shiishadii waxa balaayadu way kala daran yihiin, kana ugu daran. hadday 5 xabo ka cuntana waa daroogo. hadday 6 ka cunto iyo 7na waa qalalaysaa. hadday 8 ka cuntana way dhimanaysaa. hadda halkay joogtaa? magaalada Muqdisho waxaa ku jira meelo badan oo dhaqan toosina oo leeyahay dadka lagu dhaqan toosiya. ilaaha wax toosiye. marka meeshaasaan geeyey. Dr. Cabbaas Dhaqane Xalane waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta wax ku bartay Soomaaliya. waxa uu ka qalin jabiyey jaamacadda Banaadir sanadkii 2014. xilliganna waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku shaqaysta xirfadiisa. sanadkii 2016 waxa isaga oo ku shaqaysanaya xirfadiisa dhakhtarnimo uu qabatimay daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha. aniga waan xanuunsaday anigoo muddo 3 sano isku xiga u shaqaynayay isbitaalka Masaarida. halka aan ku shaqaynayna wuxuu ahaa dhakhtar Soomaali ah oo loo yaqaan anesthesiologist ama anesthesia doctor. waan xanuunsaday. marka xanuunka koowaad oo sababta u ahaa wuxuu ahaa typhoid malaria positive noqday. taana waxay caan ku tahay qofka inuu madax xanuun fara badan uu dareemo. shaqana challenge arag kula jiray si aan shaqadiina uga soo baxo xanuunkiina uu ii dhaafo. nin dhakhtar ah marka ani macallin ii ahaa oo Soomaali ayaa wuxuu yiri daawada la qaado
shaqadaadana wado wax xanuuna ma dareemaysid marka aad fiicnaatana waad iska dhaafaysaa. kabacdi maxaa kuu xigay markuu dhakhtarkaasi qaado ku yidhi maxaa kuu xigay tallaabadii ku xigtay maxay ahayd? horta 2 isbuuc muddahan qaadanayay markii 2 isbuuc muddaha aan qaatay daawada jirkii waa markii aan cudurkii ka fiicnaaday waxaan arkay weli wixii markaa daawada dhaafana waa xanuunsanayaa markaan qaatana waa fiicnaanayaa. marka si aan barnaamijkaas aan iskaga gooyo waqti dheer ayay igu qaadatay. waqtiga ay igu qaadatay 2 sano ayay ahayd. adigu daawada aad qaadanaysa ee saa kuu gashay magaceed waxaad ii sheegtaa qiyaasta dooska aad qaadanaysa. marka hore aniga dhakhtarka wuxuu i qoray doos ah in hal cirbad aan qaato subaxdii markaan shaqada soo galayo si active aan shaqada ugu noqdo asagana muxuu ahay anigana aan ku dareemo xanuun baabiye ahaan si aan u shaqeeyo xanuun aan u doonin ragga markaas gaalinta igala dhexeeyana aan shaqada aanan uga bixin oo aan mar walba aan dhabarka aan u shaqto. mideeda kale daawada marka hore dooska ku bilaabanayo kugu soconayso maalinta kuwada daawada la qaadan jirtay isbuuc 2 isbuuc kadib waxuu kugu taray 7 ay noqonay isbuuc 3 4 ay noqonay isbuuc 5 10 xabay noqonay heer waxa gaaray marka dambe hadii 20 dalac dadku jooga xataa ay waxba ka tirin. Dr. Cabaas Dhaqane Xalane waxa uu haatan si buuxda uga soo kabtay isticmaalka daawooyinkan xanuun baabi'iyaasha iyo daroogada ku jirtaba. intii uusan ka soo laabanin haadaanta uu ka laalaaday waxa uu la kulmay dhibaatooyin culus oo halis geliyey naftiisa. Dr. Cabaas Dhaqane Xalane waxa uu isku mudayey cirbadda Bethadine. waxa uu galka baarista uga sheekeeyey sida dhibta yar ee lagu galo iyo kadib sida ay u adkaato inuu qofku ka haro. aniga qoysasaan lahaa muxuu ahaa qoysaska aan lahaa waxay ahayn laba guriyaan lahaa labada guri jaaniskan u waayo xataa aan muxuu ahay aan ku dhaqdo waxaan jaaniska aan ku shaqayn lahaa sababtoo ah qofka markuu qaado waa dhacaya yani magaalada aadi kartid meesha aad ku qaadaysaa dhece ilaa iyo waxaa dhacsanaanaysaa 3 saacadood 4 saacadood marka uyeertaa markaa soo kacadna hore inaad ka qaadataa u baahan tahay. xididada jirkaaga dhan way baaba'ayaan waxay leedahay in xididada jirka ay disho oo jirka xididadiisa dhan ay aada usoo yaraadaan oo heer qofka haddii emergency ama dhibaato ay gaarto xididadiisa hal raadi haddii aan laga helinin dhibaatooyinka ay gaarsiiyeen qofka waxaa kamid a reernimada qayb kamida ay baasanaysaa oo qofkii rabitaan dumar ma yeelanayo. dhibaatooyinka ay leedahay waxaa kamid a qofka yani wuxuu yeelanayaa wax daawo ah wax baahi ah oo dareemayo ma lahan marka uu isticmaalo waa sadad oo deyn ah ayuu dhargayaa kadib waxaa ku dhacaya qofka weightless kadibna difaaca jirkiisa yaraanayo xataa haddii hergab uu ku dhaco qofka ma u dulqaadan karo heerkaas gaaraya. marka jirkaaga ilaa imise meelood baad iska mudday? marka hore levels ayay leedahay qofka marka ugu horeysa xididkaa laga duraa marka xididka waayo kadib wuxuu isku dayaa inuu murqaha ka qaato markay muuqada meel kasta ay bararaan xididan jis ka dhamaado kadib wuxuu isku dayaa haddana maqaarka iyo murqa inta udhexeeya inuu duro kadib qofka wuxuu gaaraya markasta meel kasta jirkiisa kamida cirbad ku duro inay maal ka timaado oo jirkii ay fashfasho oo jirkiida daawada usoo celiso heerkaasuu qofka gaaraya marka ugu dambeyso. marka dambena wuxuu gaari karaa qofka inuu ku sameeyo oo marka u hore uu qaataba qalal iyo inuu kusoo boodo iyo muxuu ahaay iyo blood pressureka oo aad u dhaco baalsi iyo dhaco qofka respirationkiisa oo muxuu ahaay halal galo. waxaa loogu talagala qofka dhalinyarada ah in 12 ilaa 16 in halkii daqiiqo u neefsado intaas in ka yaro qofka neefsanaa 5 ilaa 6 ilaa 7 hypoxic ayuu qofka galaa xididkaa baaba'aayo kadib wuxuu isku daya murqiya haddana aad kulli baranayo maal laga jeexa kadib haddana isku daya maqaarka inuu ka qaato darajooyinkaas leeda baasha. dadku waxay isweydiinayaan arrintani wax bulshada maxaan ku idhaahdaa heer qalalaasa ah oo heer xaalad degdega gaadhsiisan miya oo laga anfariiro mise waa qof unbay ku dhacaysaa bulshada intay la eg tahay dhibaatadani wax muuqda miya mise waa wax laga badbadinayo? hadda barnaamij aada u muuqda waaye dadkiiba kusoo bateen waxa sababayna waxaa waaye dadka maadaama aqoon badan aysan u lahayn daawadii gobolka Soomaaliya aad bay ugu soo badatay si jaamacadda isaga soo gashaa runtii bulshada aad bay ugu dhiban tahay dad badan oo ku dhintay waa arkay 2 kamid aan aqaanay inta kalena mar aan bulsho joogo waxaan sameyn jiray campaign oo barnaamijyadaas aan uga hadlaayo oo aan dadkana aan ku caawinayo in wixii oo muxuu ahay u baahan dadka in caawiyo u baahan lacag la-aan barnaamij ahaan muxuu ahay aan sameeyey 12 muxuu ahay ilaahay igu guuleeyey oo ka fiicnaaday qaar aan uga fiicnaanina waa jiraan 2 nin oo aan muxuu ahay aad aan u dhow taagnaa muddo sanad camal ah waa u dhinteen sababtoo ah way khiyaali jireen laftooda way khiyaali jireen waad ka dhaafadii jireen waasna ku isticmaali jireen. mid ka mid a dadka sida weyn u qabatimay daroogada balse xilligan ka bogsooday waxa uu markiisii hore ku soo bartay dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka Yemen waxaana uu ogaaday inay aad u dhib yar tahay Soomaaliya sida lagu helo daawooyinka xanuun baabi'iyaasha ee ay daroogooyinku ku jiraan. waxa uu la kulmay dhibaatooyin la mid ah kuwa uu arkay Dr. Cabaas Dhaqane Xalane.
qofku markaas uu ku cusub yahay baasha jecel yahay amkiya dhexdiisa lagula diro ninka rajinkaha ku diray marka ka diro aniga ku dhacday meeshii ku dhacay haddaan markaan dhacay haddaan dhinto ka waran haddii ka waran intaan afka ku dhigsado ilka iga daataan haddii ka waran intaan madaxa ku dhigsado leerba wax iga gaaraan asagaa loo haystaa sidaa daraadeed uu isku kaansinaya marka markuu kaa gasto iga siso ma kugu dirayo waxaad qof midaba inaad barato inaad istirto adiga qofka marka uu isticmaali doonaa gacanta midigtaa isku diraya ila ma tirin gareysna sida diraya midig markii daasho oo dee meel ka geliyo waayo midigtaa daashay masalada gadaasheeda soco lugka hoose cagta hoose oo maxaa la yidhaha lumada sida qofbuu garanayo soco indada hoose oo maxaa la yidhahdaa shanshada udhaxaysa ciribta inta ka dhaxaysa tilibka soco ilaa akhirka uu ku tago xulka taranka ilaa uu ku tago ilaa ay ku tageen qaar dowlayaashan dhuunka ku yaala in laga siiyo qaar ay gaareen dareerka wejiga dadka qaarkiisa ay leeyihiin kalabarka wejiga ay kasoo baxa marka qofka tawarashada dhiigiisa ku gororo iyo ka qaadanayaan arkay waxa uu iga sheekeeyey ninkaasi foolxumada ay leedahay la qabsiga daawooyinkan iyo inay qofka gayaysiiso inuu la yimaado dhaqan aan caadi ahayn oo meelka dhac weyn ku ah sharafta iyo maqaamkiisa waa kaa sadohdaa weydiisaa maalinka adiisa baasha oo dimashada aad weydiisaa dil oo ilaahay kuumadka mardiid war waxaan sheega ma garanayo aada weydiinayo iyo meelaysan gelayno ma jirto daroogo kale oo dhibaato ku haysa bulshada siiba dhallinyarada waxaa la iigu sheegay inay tahay taabuu oo ah tubaako badankeeda laga keeno dalka hindiya inkastoo waddamada deriska la ah soomaaliya laftooda ay ka soo galaan cabdulqaadir sheekh xasan ismaaciil waxa uu ka tirsan yahay urur lagu magacaabo saxadhowr oo ka jira magaalada muqdisho waxa uu in muddaha ka wacyigelinaya dhallinyarada isticmaalka tubaakada taabuuga inta badan magaalada waa lagu gadaa dukaamada sida caadiga ah waxaana ugu badan dhalinyarada isticmaasha kuwa waxbarashada ku jira oo iskuullada dhigta waxaa soo labeeya dhalinyarada sportiska iyo kuwa hadda badbaadilada tawada marka saddexaas waa u badan meesha ugu dambeyd aniga aan tahay aan xooga saaran waxaad waxbarashada ma qiimayso si gaara ma u egtay dhibaatada ka imanaysa maxay tahay isticmaalka tubaakadan wax dhibaato amay leedahay dhibaato badan ay leedahay qiimeyn badan iyo waxaan ku sameynay daraasada ku sameynay cudurro badan oo sababa oo habkan ugu weyn oo saameynta ugu badan keeni kara waxa waa cudurka la yidhahdo kansarka iyo qofka iyo nolosha ka dhacay marka taabuuga dabta waxay usoo gudbinaysaa qaadkii sigaarka kadib waxay usoo gudbinaysaa waxaa liga kale maandooriyaha marka laakiin cudurrada badan oo sababa sababta meesha la saartan waxaa ka yimaada caabo hoos yimaada caabuqaas oo isku bedeli doona waxaa kansar wuxuu kaloo leeyahay wadna xanuun siday ku bartaan maxay ku bartaan marka hore ma saaxiib bay ka bartaan ma meesha miyuu jaban yahay oo si dhib yar baa loo heli karaa maxaa laga helaa qiimaha horta laga siiyo aada u jaban yahay waa qiimo yar oo raqiis ah laakiin meesha ugu badan u samaro qofkani waxa waaye saaxiib inta badan saaxiibkaa bara sababta ardayga markii fasalka oo fadhi inta badan tusaale markaan arday usoo qaadanayo waa meesha ugu badan ka sameyn wacyigelinta waa iskuullada marka asaga wuxuu arkaya xaalad kala jira ama imtixaan ku adkaado meelaha laga faa'iideysto imtixaanka markuu raadsinta kana kuu foganayo wax bidiyo waayo waxa waaye xaalad kala jira balho samee sidii marka ku bilaabo ardayga inta badan marka saaxiibada inta badan sababa oo ardayda macnaha bara ama dadka isticmaalada waalidiinta qaarkood waxay bilaabeen in dhallinyarada qabatintay daroogooyinkan oo ay ku jirto taabuuga ay geeyaan xarumo lagu dhaqan celiyo ama lagu hayo si ay u waayaan balwada ugana go'aan xarumahaasi waxaa ka mid a tan lagu magacaabo gargaar oo ku taalla degmada hodan ee magaalada muqdisho daahir axmed ayaa madax ka ah xaruntaasi wallahi horta xarunta dadku isbedelaan waalidkuna waxay keensadaan inta ay tabartoodu hayso ayay keenaan maalan qofka lagu keenayaa waxaa laga yaabaa inaad 6 bilood haysid ama 1 sano haysid ama qaar 3 bilood haysid markuu isbedelayaan ilaa dhowr boqol oo qofkaana soo martay markay ugu yaraato waxaan isleenahay diiwaangelinta aan soo dirnay waxay gaaraysaa ilaa iyo 500 way gaaraysaa dadkana soo maray oo ilaa iyo 5 sano oo hadda aan shaqaynayay markaan ka hadalno xilligan aan wada hadlayno iyo xarunta dadka ku jira gaar ahaan kuwa waddanka gudihiisa ah ee dhalinyarada waddanka gudihiisa ku qabatintay daroogooyinkan waa imise tiradooda adiga hadda dadkaas ilaa 80 waa gaarayaan hadda aan hayno maadaama dhulku iska yar yahay hadda tirakoob ma ka haysaa 80ka inta qofee mar labaad la soo celiyay ama mar saddexaad aad bay u badan tahay numberkaas hadda kusoo laalaabanayo inta kiniinigii la qabatimay ama daraagiskaas oo dhan la qabatimay banaanka u laabtaa ma yara number yar maahan yaraa markaan miiska galaa ugu laabano
foomkii horaada yaalba qofkii waan garanaynaa hebel oo laga yaabo 6 bilood ka hor inuu naga tegay baana loo soo celinayaa ama hebel oo naga tegay 3 bilood ka hor ama sanad ka hor naga tegay dadkii la fiiriyo waxaa laga yaabaa inay isku noqoto isku celcelis dadkaas inay boqolaal gaaraan iyo yaraan 3 boqol ay gaaraan inta xarunta furtay kadib wax kusoo laabtay oo ku laabtay community waxyaalaha isticmaali jireen. hooyada aan ku waraystay bilowgii barnaamijkan ayaa ka mid ah waalidiinta tallaabadaasi qaaday waxayna gabadheeda geysay mid ka mid a xarumaha dhaqan celinta ee ku yaala magaalada muqdisho. gabadheedu waxay ka mid tahay dhibanayaasha 2 jeer lagu xareeyey xarumaha dhaqan celinta. imise bilood bay hadda ku jirtaa xarunta dhaqan celinta? gabadha 3 bilood ay iga jirtaa hadeertaan. hadda ka hor meesha maa la geeyey ka baxsatay mise waa markii ugu horreysay la geeyo? ma aysan baxsanin waxaan isfiirin intaan geliyey oo dad ehelkayga adiga lacagta isiiyeen bay 2 bilood markay ku jirtaan is-iri way fiicnaan doontaa waa dareemi kartaa waa waaligaan ahay gabarna meesha uma fiicnaan isiri markaan kasoo daayana way iga baxsatay mafahamti. imise xabo kiniiniya markiiba liqdaa? halka mar 5 xabaan la qaadi jira halka mar. xaggey ka heshaa? lala dadka ma wala weynaya waad soo gabanaysaa awal 2,000 oo shilin Soomaaliya xabadkii la dadi jiray xanuun baabiyo camal loo isticmaali jiray ayaa kulay hadda qorshahan keenay hadda laakiin $1 u maraya xabadkii. laakiin xarumaha dhaqan celintu mar walba ma aha xalka ugu dambeeya ama ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo la qabsiga daroogooyinkan. inta badan inuu qofku dawoobo kana go'o la qabsigan waxay ku xiran tahay dadaal uu sameeyo qofka laftiisa iyo sida uu u bedelo habdhaqankiisa. tusaalaha ugu fiican waa dadaalka uu sameeyey Dr. Cabaas Dhaqane Xalane oo ka shaqeeyey inuu noloshiisa dib u soo ceshto naftiisana uu xakameeyo. xilliganna waxa uu ka mid yahay dadka laga dhex yaqaana dadweynaha ee ka wacyigeliya dhibaatooyinka daroogada waxaana uu ka qoray buug. waxyaabaha ii fududeeyey inaan ka hara waxa marka koowaad waxaa research ku sameeyey dhibaatooyinka ay leedahay physiologically waxay jirka ay ku bedelayso oo aan qaarkood baraati ka arkay intaa kaliya ugu filnaaweysay marka dambe waxaan baxay khuruj fi sabiililah muddo 1 sano iyo kadib 1 sano iyo bar markaan khuruj baxay oo xilna quraan alla aan akhrisanaa xilna alla askartiisa aan muxuu ahay aan afka ku haayo ilaahay ayaa marka dambe igu caawiyey oo jirkeydana intii wax ku jirta ka saaray ayadana iga mareysiyey oo inaan u baahanin oo marka aan intaanan bilaabin ka hor noloshaysa aan noqday hadda kula hadlaayo alxamdulilah waxaan ku jiraa 7 taana waxay cadeynaysay in muxuu ahaay nolosha qofka jirka bini'aadamka marku iska dhaafo horumarka koowaad oo la kulmaayo waa in barnaamij dib usoo laabtaan isla markaana oo muxuu ahaay damco in uu guursado haddana waa muxuu ahaay 7 baan ku jira alxamdulilah laakiin halkii hore aan marka bilaabayo laba xasaan lahaa awoodda u yeelan waa garigeedii inaan tago sababtoo ah marba haddii aad baasha qaadato dareenkaaga waa dhimanaya raganimadana waa dhimanaysaa baahidii kale aad u baahna dimar ahaanna waa dhimanaya ilin qofa waxba cunaynin waxna cadeynin oo darad been daragsan energy jirkiisa waa yaraanaya. qoysaskaagii hore miyaa ku burbureen arrintan darteed? ha qoysaskayga waa ku burburay mideeda kale ani baabuuraan watay markaa muqdisho ani baabuur la yihahda carola luxon aan watay oo markaas baabuurta ugu qaalisan ahayd 2000 iyo muxuu ahaay 6 gaarigaas maalin alla keena shilaan geli jiray sababtoo ah gaariga markaan daawada qaataan gaariga wado mar xoolaan ku dhifanaa mar biniaadan ku dhifanaa mar muxuu ahaay marka xaasaskana inaan haweysto iska dhaafay guryaheeda xataa aan ka dhumanaa sababtoo ah waxaa waxba ugu haayo gabadheena markaa cuntay waxay cabtay meel seexda hooyada kama weynin mugtahay marka sidaa darteed adiga marka haddaa baasha qaadatid uma baahnid xaas adi dhan waa isdadoogaya qolaa isku soo xiraysaa inta aad isticmaalaysid banaanka inta la bisatid aadid lagama yaabo sharaf daro qofka waxyaabaha ugu daran waxaa kamid a yacni dadka inay ku jeedaan mid moodid dadka dhan way ku arkayaan dadka dhan inaa adiga aysan ku dareemeyn aad moodeysaa laakiin qof kasta oo ku fiiriya calaamadaha loo darta waxaa waa dry nose afka inaan ku qalalaayo markaasaa ayadan waxaa noqonaya qof muddo 2 bilood aanan biyo si fiican u cabin oo mar walba meel oo bahgooyo ka yimid oo safar ka yimid oo kale oo dhaqanay. la qabsiga daroogada siiba daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha ee ka samaysan maadooyinka daroogada ah waa dhibaato gacan culus ku haysa waddamo badan oo dunida ah hase yeeshee waddamada aan lahayn sharciyada ama fulintoodu ay liidato ama si baahsan oo fudud looga heli karo daawooyinkan sida Soomaaliya oo kale waxay aad ugu sii nugul yihiin aafada daroogooyinkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu xilligan qabatinka daroogadu faraba'as ku hayo. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen inay ka warhayaan dhibaatada isa soo taraysa. wasiirka caafimaadka Foosiye Abikar Nuur waxay galka baarista uga warantay in dhibaatadan ka imanaysa daroogooyinkan la qabatimay ay dheeraad ku tahay in daawooyinka la soo gelinaya waddanka qaybo badan oo ka mid ah ay tayadoodu liidato.
waxay kaloo wasiirku sheegtay in tubaakada taabuu ay dhibaato weyn ku hayso jiilka cusub. daawooyinka ibtila weyna ka socota waxaa jira daawooyin badan oo ay qaataan dadka iyagoo aanan takhaatiir u qorin. waxaa hadda aada iyo aada magaalooyinka intooda badan sida magaaladan madaxda ahaan hadda joogan aada ugu badan in la isticmaalo wax taabuu laleeyahay tabaaka oo afka la gashto. dhalinyarada ayaa aada u isticmaasho. ma hayno statistic cadad baaritaan laguma sameynin oo lama raadin, laakiin habashada iyo magaalada markaas weydiso iyo bulshada dacaladeeda kala duwan waxaa aada u badan dhalinyaro badan inay isticmaalayaan taabuuga aada loo. waxaa kaloo jira isagana daawo tramadol ah oo aada iyo aada loo isticmaalo. waxyaalahaas waxaa keena daawooyinka in la isticmaalo. daawooyinkii waxaa la tegayaa farmashiyayaasha, cid kastaa iibin karta, si kastay usoo degaan magaalada si waxaa loogu iibiyo caadi ah. naga wasaaradda waxaan sameynay sanadkii dhamaaday waxaan mamnuucnay dekreeto xeer wasiir aan ku mamnuucnay taabuuga inaanan laga soo dejin karin, laga baaxmishtari karin, la iibin karin. sidoo kale tramadolka wuxuu kamid yahay daawooyinkan la xakameeyo. waxaan saarnay xakameyn waan xadidnay. waxaa jira takhaatiir badan iyo rug caafimaad badan oo soo dalbada oo ruqsad raadiya yimaada wasaaradda si ay u iibgeeyaan. waxaan sameynaa isbitaalada waaweyn ee u baahan daawooyinkan narcoticska ama restricted drugs la yidhaaho oo laakiin u baahan in isbitaal lagu maamulo ama takhtar uu hadad la ogyahay isbitaalada ku filan ayaanu ogolaana. laakiin waxaa jira in badan oo si sharci darro ah ku keen dhibka waa badan yahay. mid ka mid a siyaabaha loo xakamayn karo si xun u isticmaalka daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha waa in marka horeba ay dhakhaatiirtu u qoraan baahi adag oo jirta oo keliya darteed, iyo inay qoraan dadka dhakhaatiirta ah oo keliya kadib marka ay qiimeeyaan xaaladda caafimaad ee bukaanka. hase yeeshee sida ay qirteen mas-uuliyiinta caafimaadku, kuwa qoraya daawooyinkan, kuwa soo dejinaya iyo weliba kuwa iibinaya waxay u badan yihiin inaysan u diiwaan gashanayn dowladda Soomaaliya. wasiirka caafimaadka Foosiye Maxamed Nuur ayaan weydiiyey waxa ay ka qabanayaan arrintan. innaga waxaan sameynay register ayaan sameynay. wax ayaa jirta oo aan aada u xoojinay 2 sano dambe oo aan leen ay sameynayso inay register garayso takhtar walba oo wadanka soo galayo oo ajnabi ah oo ka shaqeynayo in markuu ruqsada soo qaato uu loo yimaado annaga intuusan shaqo gelin. waxaan immigrationka dhignay foomamkii warqadihii annaga aan sheegnay. warqad takhtar kastoo yimaado wadanka inuu soo register gareeyo noo keeno shahaadooyinkiisa aan xaqiijin. haddana saasay tahay inta badan ma dhacdo. annaga markii aan wasaaradda tagay wasaaradda caafimaadka annaga waa fariisanay. waxyaalaha ugu horeeya oo 2017 markaan xafiiska la wareegay aan ka wada hadalnay wasaaradda oo kadibna xafiiska ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada isugu yeeray oo wasaarad walba la weydiiyey waxyaalaha horumarinta priority-ga ay qabanayso 30 casho ugu horeeya mandate-keena inay soo sheegato ay tahay annaga shaygii ugu horreeyay aan ka tala bixinay oo aan go-aansanay wasaarad ahaan waxay ahayd shuruucdii caafimaadka inaan ka shaqeyno oo aan baarlamaanka sida ugu horeysa dhaqsaha la angeyno. sharciga markaan baarlamaanka geynay oo la ansixiyey aqalka hoose ansixiyey November 2018 dad badan waxaa gala cabsi. isbitaallo badan waxay soo direen waraaqadihii sharciga u raadinay, laakiin way soo degaan dad baa wakiisha dad isbitaallo private lahaa jira oo soo dejiya oo aanan soo marin. isbitaallo badan oo waaweyn magaalada ku yaalo ma sameeyaan qarsi. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh